يلا weligay ma arag imaam masaajid ku tujinayo misana ku huruufay kula dagaalamaya oo haddaad salaantaan ka qaadayn waxaanu aragnay qaabka ummadda loo dhaqmayo inayan istaahilin loo guuro waxa dhacday dadkii guryaha ka iibsaday ninku inuu isxariifeeyo guri baan iibsaday guriga wuxuu haystaa inuu green card ku helaya halkuu tagay caruurtii xaaskii buu kaga daadiyay sanad orada la siiyay ama 2 sanadood orada maanta dambu ka dhacay waxa la yiri waxa yaryarka naga saar miyaad aragtay 9 caruura oo la yiri 9 ka saara hooyadoodna reer habartu maxay ku falayaan oo la hadayaan 9kii caruura waxa la yiri naga saar habartuna ha joogto markuu marmooyo guri baan leeyahay waxa la yiri ruushka iyo iswasiiriinta iyo iyaba guriga waxay ku leeyahay Antaaliya guriga kula weynaadeen nooga bax wadanka maxaa noogu timi dalxiis ba ahayd 3 bilood 4 bilood baa loogu tala galay 2 sanadood baa joogtay bax guriga hadda doonti tuurta ku qaado ninkii rabay inuu soo guuro oo guriga iibiyo boqolkiiba konton baa lagaga baayaca ragga hadda halka degan oo halka jooga raalle ay gaadeen tala xumo maaha laakiin waxaan leeyahay xognimada waxaan ayaan ku waramaya waxa dhacday dad baa meherada furtay annagu markaan iyo maxay caadid waxaan joognaa Ankara saf baa laga maray oo la xirxiray inkastoo qaybtood qaladaad lagu helay oo fiisaha ay ku furteen meesha aan ahayn fiisa tijaari ah ee uu hadal xiiska waxa dhacday xaafado in lagu masaafuriyay dariska idinka cawday caruurtiina qaylo badan ama oohin badan lagaga saaray oo leeyahay wadanka ka baxa waxa noocaasa ayaa la mutay markii meesha la tagay manhajkii iyo waxbarashadii oo iyaga laftigoodu khalad uu ka yimid waxaan